حتى قاربا waxay aaminsan yihiin inay sheekaystaan say jacayl u helaan laakiin aanay guursan horta walaal waa fikrad khaldan dhamaan wanu sheegay inta dhalinyaro i maqlaysa inaad jacayl yeelataa waa wax wanaagsan laakiin jacaylku halka loogu talagalay waa gurigaaga waxaan doonayaa daawadaha ay daawanaya inaan u sheego jacaylku marka jacayl doonaysa inaad samayso saddex shay buu doonayaa inanta sheekaysatay iyo inanka sheekaystay hadda saddexdaas shay doonaysan inaad si qaldan u samaysaan go'aansada caawa waxaan leeyahay go'aansada inantu markay doonaysa inaan jeclaato ama inanku inuu jeclaado aanu qabin markuu doonayo inuu jeclaado saddex tilmaamood baa looga baahan yahay jacaylku wuxuu rabaa taabasho jacaylku markaan ku jeclaado shucuurtaada kacaysa waxaan u baahan qofaan taabto I love you waan ku jeclahay baan u baahan inaan iraahdo jacaylku wuxuu rabaa marka taabasho ninkan waa ajnabi waa xaraan gabadhan waa ajnabi waa xaraan sidaan u taaban karaa marka waa cancel marka jacaylku marka taabasho loo taabashada la xalaaleeyo lambar 2 jacaylku wuxuu doonayaa ereyo macaan waan ku jeclahay ma jirto waxay raadaan ma jiraan hani qurux badan oo ereyo macaan buu doonayaa ereyadan macaan laba xalaal oo isqaba loogu talagalay looguma talagalay inay because dareenkooda kacaya markay hani qalbi baby tiraahdo inankii miskiinka gogashu galgalanaya miskiinada caawa dhariga way gubaysaa maxaa xala ilaahayna wuxuu yiri fala takhda'na bil qawli fayadma alladhi fi qalbihi marad halkaas waxa ka soo baxaya marka khalad weyn jacaylka marka meeshiisa lama dhigin waa waxa hadda nacaybku imanay mugta marka hore la qalday marka jacaylku wuxuu rabaa ereyga wanaagsan xalaal buu doonay in laga tago lambar 3 jacaylku wuxuu doonay eegmo waxaan doonayaa qofkan jecel inuu la hor fadhiiso insaan la isku eegmada maya waa indhaha beenta indhaha jacaylku waxa rabaa inay si khushuuc la isku eegaan ninku markuu gabadhiisa eego oo gabadhiisa qurux badan jacayl baa ku kacaya jacaylku u kaca moogta sabada u soo kacda maarta mu jacaylku u kaca muujada jacaylku way isba bedelaan moogta marka way kacaya marka ninkana markuu gabadhan eego waxa loo baahan yahay xalaal u tahay marka gabadhan xaraan kuwa sidoo eegi karaysa nin xaraan ka sidoo eegi karaysa marka dhalinyarada saddexaas ay qalday saddexdana laba isqaba loogu talagalay lamaana loogu talagalay marka hadii lamaanihi saddexdaas sameeyaan jacaylku uu guuleysanaya laakiin hadii la isqabin saddexdiba la soo sameeyo la soo taabto hadal macaan la isdhaho la soo eego gaadho maxaa la imanaya guriga hawadu ku jirto xaraan baa baabisay because inta daahir oo qurux badan hadaan tan uska qaado ku dhex shubo maxay noqotaa moorada cuntadan aan cuno inta uska ma cunaysa jacaylka markaas loo galay jacaylku guurka marka la yimaado baabaya muxuu baabayaga marka iyaga uska ku soo shubay jacayl iskagaysan sidee loo haysanaya marka jacaylku si nadiif u haado waa in qofkiisa yar lagu daaya waa in boqoska ku xirnaada waa in la iskaan talala inanku marka keenanta inuu jecel yahay inantu ma yartina keenay jeceshay adduunyada isku xiran waxba isku xiran marka waan isjecelna Soomaaliya wad jeceshay Soomaha waan istoonayna akhlaaqdaada iyo diintaada ma fiican because illa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ida aataakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawwijuhu gabadhan waxa laha intan ku dooro nasab ku dooro qurux ku dooro fadfir bidaati diin taribat yadaka waklaha gabadh diin leh marday gabadh diin fiican leedahay ninkana diin iyo akhlaaq leeyahay jacaylna meeshii yimid oo la istoondoonayo degdeg la isugu daro lagu dhiirigelinaya iyagoo daliilada haysta ay haddana ka oranayaan maya waa in qof nolol buu baahan yahay waa in ninku dhaqaale yeeshaa hablo badan waxa jira inaday ku fikiraya doona in xadana habeenka sanad been ugu sheekayso jacaylka baan aad u badan ma dhoodii bilo jartay waxa jira dumarku saddex beel sheekaystaan inantu waxa la kasaba tiri inan saddex telefoon dirayso la wada hadlaysa maxaa ku kalifay jacayl bay raadanaysaa haday hal mid oo wax badan ay ka hesheelad ama guursan lahayd okay bay ahaan lahayd inanta gurigoodii jacayl badan kuma helayso laakiin ragu iyagu ma diraan ya waxa la kasaan ma qaar kornaya qaar baa really sida shaarka uu kala bedelay toddobaad buu inan ma sha Allah ku yi toddobaadka damaad tu kale ku yi toddobaadka saxab subhanaka ya hadin de intana maskaxoodu u haya gabadhan intana maskaxaasay haysa waa wada been waxa rabaan beenta sidii samad xisku garaacan hadhow guriga isku yimaadaan laba beenaala marka hadhow guriga dhisanay moogtay marka wasarkaya hadhow aadiya marka dadka isjeclaa wasarkayaan waxaan leeyahay hadii caawa jiraan laba qof oo akhlaaq iyo diin leh oo isdadnimo iyo wanaag isku dooranaya min fadlika saddexda u heshaan iskursada guriga walow qol kaliya ha nolosha waxay ka bilaabantaa bilowga
waxba sugan miskiinkan intuu $1 qaadanayo waxba inaad sugtaa muhiim ma waa inaad nolosha bilowda waa inaad la bilowda war adiguna markay kula bilowdo ha ka kibrin ما يسكعادي نو نحبر هذه حقيقة لا سيوح وكما مقنع واتهاي جعيلك يالكاي نودك عاو بدوينتي جعيلك أي ندح جلسي كودي مركا جعيلك dadka qaar bad xasuusanay moogtahay dad waxa leenahay xataa ku isjecel ag jooga waa sax in waxa ku soo noqonayna xagga qoyska in maxaad ka qabataa xagga arrimaha qoyska walaal arrimaha qoyska waxaan ka qabanaa alaam salaam doorto wixii ilaahay naga karsiyo wax kasta waan qabanaa ma oran karno laakiin awoodeena intii ilaahay ka noo saamaxo haday tahay inta badan imika waxa ugu badanaan ka shaqeeyo waxa talooyinka tala bixinta labada raba inay qoys sameystaan qaabka wanaagsan u sameysan lahaayeen labada qoys kale sidii gurigooda ku sii adkeysan lahaayeen wixii problem haduu jiro khilaaf haduu jiro si u xalin lahaayeen inta ugu badan hadda waxaan ka shaqeeyaa waa tala bixinta ama xalinta intaas inta badan in qoyska marka la leeyahay qoysku wuxuu ku dhisan yahay in maamada amba hooyada gurigaasi maadaama aad nida tahay gabadh yar oo waliba dareemaysa arrimahaasi qab aankeedu uga caawisa hooyooyinka horta wala wax la hooyooyinkeena Allah u naxariisto hooyooyinkeena walahi hawl badan bay hayaan qof dhax galay oo baan dareemi kara hooyooyinka Ilaahay u naxariisto Ilaahay u naxariisto hooyo kasto muslim adduunka meel kasta ka joogta Allah dambigeeda ha dhaafo horta maanta arrin ma raba inaan halkan ka cadeeyo waxa la raanta badan qoysku hooyo ku dhisay waa run laakiin hooyo kaliya kuma dhisna hadduu qoysku hooyo kaliya ku dhismo hooyadaasi intay wadi karaysaa way wadi laakiin way yaraanaysaa tayada ay soo saaraysaa way yaraanaysaa sababtoo ah ilaahay markuu qoyska sameeyay muu oranin qof kaliya ku dhisnaado xayaat noloshan qoysku waa shariik waa nolol la wada leeyahay mid waliba in buu leeyahay haddii qof kamid intiisi uu fulin waayo meeshii way dalooshamaysaa hooyadani haday israada intaadina gufay inta ninkana gufay ma gufin karayso waa awood ka baxsan haday si kasta isugu dhibto ma buuxin karto ilmihi yara xanaanu raba hooyada waxa looga dhigay gabar jilicsan in ilmaheedu u naxariisato aabiina waxa raba inuu adkaado oo ilmihi ka boqo waayo hooyadii marna may jilci marna may adkaani hooyadii ma ilmaha ay u meedhin bariiska u karini mise dabadii ka soo eegay iskuulkiisa sidoo yahay hawshu waa ku balaaranaysa hooyadu markay wado marka dama wadaalaysa caafimaadkeeda tamar gabaya maskaxdeeda guraysa way kan nusqaamisa hooyada kale hooyada ninkeeda garab taagan yahay iyo hooyada kaligeed isku mid aha macaan baa ku dhacaya deekar baa ku dhacaya wax badan baa ku dhacay dumarkan waxa la hal ilaaliyo waa jawharad baa la hal ilaaliyo jawharada way dayacmaysa markaa sida u fikirsan nafteeda oo dhan bay ilaawaysa marka waxa la rago guriyaha ku sideena hooyada adigana qayb baad leedahay ilaahay wuxuu yiri ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala lahu min amwalihim marka ragu qaybtoodii ha qabtaan inaguna kelmada alana guriga hooyo ku dhisan yahay aan iska dayno guriga hooyada iyo aabaha buu ku dhisan yahay hadii aabu dhankiisa qaban waayo si kasta hooyadu dadashada bas waan bini aadan baa tahay ka soo dhacaysa ragga hawa ka soo dhacaysa ama ilmahaas waxba ka dhinmaya ama ilmahaas farxad badan ma helay ilmahoodii abihi gacanta wada hayaan iyo ilmahoodii gacanta kaliya la laadinaysa adiga waad garan kartaa difference oo dhaxeeya waxa kamid ah inuu xaqi aabuhu nusqaamo marka kuwaas oo kala hadii aad la kulanto maxaad kala tagtaa way badan yihiin inta hooyo suuqa tagaysa hooyinka laba hooyinka iyagu laga dhintay waa gaar hooyo badan oo ragooda ka dhintay ma jiro dadaalay ilaahay baa caawinaya laakiin hooyo ninkeeda halkan jooga laakiin hooyo ninkeeda halkan taagan yahay caruurtan aabahood halkan joogo saygeeda halkan joogo walaal hooyadu waxay u baahan tahay run ku sheegaya hooyadu waxay u baahan tahay markay umulayso in la ag taagnaado in loo dhaashiyo in la xanaaneeyo in la dhunkado hooyo intaa weeday ilmo qurux badan soo saarayso ninka maqaaxida fadhiya iyo ninka shaqada kaliya ta eeganaya iyo ragga waliba musharaxiinta xataa qaar badan baa reerahoodii laaway musharaxiinta iyo raggan dawladda aad ugu orday hooyada hal ilaaliyo waayo waxa u yimid nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam yaa igu xaqlay umuk ummadan la sheegay waa sawjadaada ummadan xaqlay waa sawjada hadii ummada xaqeeda la ilaaliyo oo la qofka koobada xaqa kubadana waa ninkeeda xaqa ugu horeeyna ninkeeda ku leedahay hadii xaqeeda uu laga soo baxo wanaagsanaa lahayd min fadlikum waxa la ragga
hooyooyinkeena way jilicsan yihiin dumarku way jilicsan yihiin in yar mid shaydaan duufsada way jirtaa laakiin hooyooyinku way qalbi furan yihiin hal erayo macaan bay kusoo joogsanayaan hal gacan yaro fudud u samaysay kusoo joogsanayaan xataa adigoon waxba kala siin haddaad la joogto tiraado shukran barakallahu fiik ilaahay ku barakay ereyada wanaagsan ay yiraahdaan bay hooyada naxariis dareemsi soo fadhisanaysaa waa ragoo dumarku way idin jecel yihiin dumarka ilaashada leena oo dumarka u dibca oo hooyooyinka ilaashada oo ubad fiican oo naxariis lahayd soo saaraan ubadka hooyooyinkood korsada oo ilaashada iyo dumarka maxaa